Barnaamijkii tanina waa sheekadeena caafimaad. Maxamed ayaan la cawil waa wiil 8 sano jir ah. In badan oo cimrigiisa ahna caafimaad darro ayuu la dhibaataysnaa. Xanuun dhinaca kaliyaha ka haystay darteed. 3 sano ee ugu dambeysay wuxuu ahaa bukaan jiif isbitaallo dhowr ah oo magaalada Muqdisho ku yaalla seexiyay. Qalliimo fara badan ayaa lagu sameeyay. Nasiib darrase ilaa hadda laguma guuleysan. Sababtuna waa qalliinka uu u baahan yahay Maxamed oo aan waddanka lagu samayn karin. Sida ay hooyadii inoo sheegtayna awood dhaqaale oo ay waddanka dibaddiisa ugu qaado awood uma lahan. Isku dayo badan oo la sameeyay laguma guuleysan in dibadda loo qaado. Hooyo Ismahaan Xasan Faarax oo ka hadashay xaalka Maxamed Yare waxayna codsatay in la caawiyo oo ilmaheeda qalliinkan uu u baahan yahay lagu garab istaago. Bismillah. Anigu magacayga Ismahaan ahan hooyo Soomaaliyeed oo ka dhibaataysan cunugan saqiirka u jeedin oo iga xanuunsan muddo 3 sano ah. Isbitaalada dibadda waa meel kasta oo geeno oo isbitaal waddanka maanta uu ku yaalo waxna waa looga qaban waaye. Anagana maanta awood aan ku wadno anaga iyo family-ka mid awood mar in aan ku goyno isbitaalada dibadda. Marka dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan dal iyo dibadba ha ahaatee. Cunuga yarka waxaa la Maxamed ayaan la cawin. Daadiisana waa 8 sano asagoo 6 sano jiray xanuunkan uu ku bilowday ilaa aftana hadda xanuunku wuu haayaa. Waxa looga badan yahay kaliyaha hal kaliya hadda waa fadhisaa ma shaqeynayso mid kalena wuu ku bilowday xanuunka la yiri wuxuu u baahan yahay qalliin dibadda ah waddankan ba wax looguma qaban karaa. Anagana maanta awood uma hayna in maanta aan wadnamis aan geeyno. Ummadda muslimiinta aan ka codsanayaa inay soo caawiyaan meel kasta ay joogaan. xaaladiisa walaa kataatarkaas u jeedin kaadida ka soo bixay ma ahan kaadida si kala ugu soo bixayso hadii kataatarka laga daaf xaaladiisa khatar ay galeen waxa iga caawisa daryeel hal ayagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa inay soo caawiyaan dadka igu bandhigaan dhibaatada ay haysato.